kulankan ay iskugu yimaadeen magaalada Muqdisho odayaasha dhaqanka aqoon-yahanada iyo haween mid kamid ah beelaha degan magaalada Muqdisho kulankooda oo saacado badan qaatay ayaa waxay uga hadleen in magaalada Muqdisho ay tahay caasimadda ummadda Soomaaliyeed loona baahan yahay in loo sameeyo maqaam gaar ah. Abuukar Cusmaan Sheekh Abuukar Ganay gudoomiyaha beesha Habargidir ayaa kulanka gabagabadiisa warbaahinta la hadlay. sida aad wada ogtay gogosha waxa dhigay guddiga beesha Habargidir waxayna u dhigeen beesha Habargidir waa beel balaaran oo qiimo weyn ku leh ummadda Soomaaliya dhexdeeda waxaan ka shiraynay oo aan u wacnay oo naga aqbaleen oo isugu nimid gobolka Banaadir oo aan wada deganahay ummadda Soomaaliya ku wada nool caasimadii dalka ah raali kama noqon sida ay lagu maamuusayo ama looga kala hadlayo waxaan mudanahay kuma qabno mana ku talana kama wadaagno qiimaha iyo dhaqaalaha iyo maslaxadda iyo sida looga tashanayo iyo siyaasadda lagu hagayo midna waxba kama ogin sida la wada ogyahana waxa hore la isugu ogaa inay masab gaar leedahay caasimaddu haddana waxay la tahay waqtigii la gaaray waxaanu ka tashanayna inaan qaybteena qaadano anagoo cid aan ugu martinahay aanay jirin beesha Habargidir waxay go'aansatay inay arintaas guddi ku habboon u soo qabato muddo dhow oo degdega xisaabteedana ay qaadato waxaan kale oo isku waafaqnay oo ayadana talada ku jirtay 2016 waxa Soomaaliya ku heshiiday inay qabiil wax ku qaybsato xisbi wax lagu qaybinayo qabiil ba wax lagu qaybinayaa beesha Habargidir si ay masabka ay ku leedahay ula wadaagto ummadda Soomaaliyeed 2016 ayadana waxay isku waafaqday musharaxiin dhowra ayay leedahay Habargidir musharaxiinteeda inay wadaajido oo talo u wadaajido oo ay dad qiimo leh oo ummadda Soomaaliyeed ka gadmi kara ka soo saarto mid iyo laba waxay noqdaanba ayadana go'aan ayay noqotay waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed oo wax wada leenahay sida kuwa noogu dhaliyada dhow sida kuwa deriska nala ah inta Soomaaliya ay ka kooban tahay inay ogaadaan Habargidir waxay diyaar u tahay 2016 masabka dalka hoggaanka dalka inay isu soo taagto mudooyinkii ugu dambeeyay ayaa magaalada Muqdisho waxa kulamo gaar ah ku yeelanayay odayaasha dhaqanka kuwaas oo uga hadlayaan magaalada Muqdisho inay tahay caasimadda ummadda Soomaaliyeed dawladana looga baahan yahay inay u sameyso sharci maqaam gaar ah u yeelaya Keen Cumar Makaraan Somali Cable Muqdisho.